wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa maanta xilalkii u kala wareejiyay maareeyihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee Berbera iyo sidoo kale maareeyaha cusub ee u dhawaan wasiirku u magacaabay haamaha kaydka shidaalka ee Berbera. munaasabad ballaaran oo ay xilalka kula kala wareegeen mas'uuliyiintaasi ayaa waxay saaka ka qabsoomtay hoolka shirarka ee haamaha kaydka shidaalka ee Berbera. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera, maamulka dekedda caalamiga ee Berbera Port iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi daafuray oo hadallo kooban oo lagu sii sagootinayo maareeyihii hore ee haamaha kaydka shidaalka Berbera laguna soo dhaweynayo maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay haamaha kaydka shidaalka Berbera. munaasabadaasi ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaariye, sidoo kale duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo dhammaantood soo dhaweeyey maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay haamaha kaydka shidaalka Berbera, isla markaana ugu duceeyey in Ilaahay xilka culus u fududeeyo. مرايا عصبنا سري مرة ما تبغى وحنو رجينا يقول وحنو رجينا إن هاي فاسترو وقبل يستوب مريتها هي حاجتها يكشفينها هما مريتها كبدو أمر سياسة دولة مع هما سال كور قبطان حكومة واحد كلوري شركة عالم جديدة فاطر هي كلوري waxaan la soo wareejiyay gacanta dawladda Soomaaliya. waxaan istaansi soo u taagan in la sii wada amba gaaska dhalay uu buuxiyay marka xitaa xaq dhaqaale baa jirta. aswa sakala khayr واحد adduunkii waajib lagu lahayo maariha subax leh utaala ku fadhiyay سبحانه وتعالى وما سلام النبي وحنا لله سبحانه وتعالى أوفر لنا كنا قاصرة محمدنا سنوا سيسو قلتينا حلالها شرف يكرامي ملعبات كراتكتي. maareeyihii hore haamaha kaydka shidaalka ee Berbera Maxamuud Axmed Gaheer iyo maareeyaha cusub ee haamaha kaydka shidaalka Berbera Sheekh Sareebaan Siciid Cali oo gabagabadii munaasabadda halkaasi hadallo mahadnaqa uga soo jeediyey marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi. sidoo kale maareeyihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee Berbera waxa uu ku wareejiyey maareeyaha cusub dokumentariyadii haamaha kaydka shidaalka Berbera, isagoona Ilaahay uga baryay maareeyaha cusub in Ilaahay xilkaasi u fududeeyo. waxaan kaloo ku darayaa maareeyaha cusub isagana ayaa kusoo dhaweeyay aan leeyahay isagana ayaan uga mahadcelinayaa soo qaybgalka. intaa kadib waxaan halkan anigu 2013 baan ayaa la soo bedelay bishii March baa la soo bedelay maantana waxa weeye 20kii May. halka muddada waxa weeyaan sanad iyo 4 bilood waxa jira maxay tahay waxyaabaha markii aan la wareegnay meesha hantida tiilay anigu 8 furood doolar baa la wareegay 8 furood doolar baa la wareegay maantana waxaan wareejinayaa 1 milyan iyo koob iyo 40,900 dollar baan ayaa wareejinaya. waxaan iyadana ilaalin doonaa aan sugi doonaa biidin Ilaahi tacaala shirkadka ixtiraamka naga dhaxeeyo oo dhammaantood iyagana isoo naqaan maalkoodina ku aaminay qaranka. intaasi kadib wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland waxa uu xilalkiisa rasmi ah u kala wareejiyey maareeyihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee Berbera iyo maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay haamaha kaydka shidaalka ee Berbera. Khalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, Berbera.